الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله أما بعد وحين ولا ليال أي نكسو قد تشرني برنامج كي هبدغن كي نبي صلى الله عليه وسلم حلقة دي هو وحين كجسو هذا اللي نبي يقاب كول دغم يدمر كيس يوريه سامح حاسس كيسة وحين حلقة دن كجهد لنا نبي قاب كي ولا دغم هوينك كلاء مسلمات كأ أن حاسس كيسة هاي وحكم إذا قابب كاس نبي صلى الله عليه وسلم إن وحويا وحبري وأقول كرديني سيدا وحويا حديث أبي سعيد الخدري وتلمام أيه نبي صلى الله عليه وسلم أيها قبر باوتمي مركز واحد رسولك الله رجبنا وكعبتي أو وقت جاء أنتي سيبنا قاتي وحن كدونينا مالنا نوجاريشو أو أن نبرتوحي إلى هاي كبري نبي صلى الله عليه وسلم حكول مال هبل يميل هبل أيها نوعات دومر كيبا يسويمي وصاروري نبي أيمي ووانيو ووعديو وحبو وشاقي ووحي إلهي بري وحكمدو وشاقي وحيابه وشاقينا وحكمدها وحول النبي قم جرت قبل صدح قف oo ay dhashay oo aan qaan gaarin ay waxa weeyaan ka hor dhimanayaan ilaa saddexdaasi jannada ayay u horseedayaan naartana xijaab bay uga noqonayaan gabadh baa gacanta taagto rasuulkii Allah laba ka waran bay tiri saddex goor bay hadalka ku celisay labadana dabeetana wuxuu labaduna waa lam waxa kamida walaalayaal oo ku tusinaya xadiidka Jaabir oo uu leeyahay maalin ciideed nabiga sallallahu alayhi wasallam markii uu ragga wacdiyay ayuu xagga dumarka aaday dabeetana waxa weeyaan wuxuu bilaabay inuu wacdinayo oo wax uu sheegayo oo aqoon uu siyaadinayo waxyaabihii uu sheegayna waxa kamid ahaa nabigu wuxuu dumar oo sadaqada ku dadaalo badiya waayo waxaan arkay inaad tihiin dadka naarta galaya kuwa ugu tirada badan gabadh baa istaagtay waxa jira rasuulkii Allah maxay sidaas ku dhacday dabeetana nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri waxaad badisaan cabashada iyo shakwada ragiina abaalka idin galaana waad ku kufridaan dabeetana waxay bilaabeen inay sadaqadii ay la baxayaan waxa kamida qaababkii nabigu sallallahu alayhi wasallam dumarkaas muslimaadka uu la dhaqmayay inuu waxa weeyaan uu waaninayay oo uu ku boorinayay dhikriga alle iyo sadaqada iyo waxa weeyaan inay adciyada naaficada ay wax taraysa ay la yimaadaan waxana ku tusinaya xadiisu Yusayra in waxa weeyaan waxay ahayd muhaajiraadka kamid ahayd dumarkii soo hijrooday nabigu sallallahu alayhi wasallam isagoo la hadlayay wuxuu ku yiri dumaro waxaad laasimtaan ilaahay dhikrigiisa iyo tahliisha iyo tasbiixda farahana ku gunto oo ku tirsada waxa weeyaan waayo way hadlayaan maalinka qiyaame oo way idin marxatifurayaan hana mooganaanina oo waxa weeyaan asbaabtan xariista idin horseedaysa haka tagina buu nabigu sallallahu alayhi wasallam uu ku yiri waxa kamida walaalayaal qodobka waxyaabaha ku tusinaya in nabigu sallallahu alayhi wasallam Asma bint Umays maalmaha kamida uu ku yiri miyaanan ku baraynin waxa weeyaan kalimaad aad oranayso marka dhibaato ay kula soo daristo ama shida ay kula soo daristo markaas waxay tidhaa rasuulkii Allah ibar markaas nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri waxa tidhaa Allah Allah rabbi la ushriku bihi shay'a waxa kamida walaalayaal xadiidka kale min xadiisi Abi Sa'id al-Khudri maalin ciideed inuu nabigu sallallahu alayhi wasallam dumarka uu khudbadeeyay oo ku yiri sadaqadaysta markaas saxaabigu wuxuu leeyahay waxaanu arkaynay in dadka ugu badan sadaqada ee maalinka wax sadaqadaysanaya ay waxa weeyaan dumarka ahaayeen waxa kamida qaababkii nabigu sallallahu alayhi wasallam uu la dhaqmay dumarka muslimaadka ah inuu waxa weeyaan ku boorinayay mawaasiimta khayraadka iyo waqtiyada khayrka leh inay ka faa'iideystaan oo ay cibaadada ku dadaalaan xadiisu Ummu Atiya wuxuu tilmaamayaa in nabigu sallallahu alayhi wasallam uu amray dumarka in la soo saaro oo ay soo baxaan maalinka ciidka hatta dumarkii aan daahirka ahayn ee xaydka qabay iyo waxa weeyaan hablihii yaryaraay marka uu qaan gaaray iyo dumarkii kalaba oo ay yimaadaan meesha lagu tukanayo sida nabigu sallallahu alayhi wasallam uu tilmaamay wuxuu leeyahay khayrka ka soo qayb galaan iyo jamaacada muslimiinta iyo waxa weeyaan maalinkaas khayrkiisa iyo barakadiisa dabeetana way imanayeen way ka soo qayb galayeen dumarka xaydka qaba ayuunba waxay ka fogaanayeen musallaha ayay ka fogaanayeen waxa kamida walaalayaal xadiista arrinka ku tusinaysa nabigu sallallahu alayhi wasallam gabadh dumarkii muslimaadka kamida markii uu xajka ka soo laabtay ayaa wuxuu weydiiyay maxaa ku diiday inaad raacdo oo aad soo xajto markaas waxay tiri nabi Allah laba awr baanu lahayn ama laba rati mid kamida xaaskaygii iyo inaanu dhalay baa ka haystay oo fuulay oo rati ka dhigtay
ka kalena caruurta ayaan ugu dhaaminaynay iyo guriga dabeetana nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri waxaad samaysaan umro la soo umraysto bisha ramadaan waxay ka dhigan tahay sidii xaj aniga macayga la xajay oo kale waxa kamid ah qaababkii nabigu ula dhaqmeeyay dumarka muslimaadka ah inuu nabigu ka nahiyay oo u diidi jiray inay ikhtilaad sameeyaan oo ragga ajaanibta ka ah ay waxa weeyaan ku milmaan hatta goobaha cibaadada waxana ku tusinaya dhowr arrinka koobaad nabigu sallallahu alayhi wasallam dumarka wuxuu amray inay sufuufta salaada inay xagga dambe ay galaan oo wuxuu tilmaamayaa nabigu sufuufta ragga marka laga hadlayo waxa u khayr badan safafka hore waxana xagga ragga u shar badan safafka dambe dumarka marka laga hadlayna waxa u khayr badan safafka dambe waxana u shar badan safafka hore dhinac kale nabigu salaada marka uu ka baxo waxa weeyaan cabaar buu sii fadhiyay isaga iyo waxa weeyaan ragguba si ay muslimiinta dumarka muslimaadka ahi ay waxa weeyaan uga horeeyaan oo dumarka ay horbaxaan waxa ku tusinaya nabigu markuu salaada ka baxo inuu sii fadhiyay isaga iyo muslimiintu si ay dumarka muslimaadka ahi masaajidka ay uga horbaxaan oo waxa weeyaan dabada iyagu ay uga horeeyaan waxa ku tusinaya in nabigu sallallahu alayhi wasallam sida xadiiska Abdullah ibn Umar uu tilmaamayo uu yiri nabigu maynu u gaar yeelo dumarka albaab u gaar ah ama albaabkan dumarka maynu u dayno naafic oo xadiiska ka warinaya wuxuu leeyahay Abdullah ibn Umar weligii ilaa intuu ka dhimanayay albaabkii nabigu dumarka uu gaar yeelay kama gelin waxa ku tusinaya hatta marka albaabka laga bixiyo dabada loo baxo inuu nabigu sallallahu alayhi wasallam maalmaha kamida wuxuu arkay rag iyo dumarkii isku soo dhawaaday markaas wuxuu yiri calaykunna bihafati tariiq dumaro idinku waxad ku dadaashaan tariiqa hareerihiisa iyo koonayaashiisa inaad waxa weeyaan martaan ragana dhexda aad u deysaan waxa dhacaysa bay leeyihiin marka in dumarku intay ku xeel dheeraan arrinka ay gidaarka iyo ooda ay isku xoqaan oo dabata oodo ay sigto inay maryaha waxa weeyaan kaga dhigto oo waxa weeyaan ay ka qabsato waxa kamid ah qaababkii nabigu sallallahu alayhi wasallam dumarka ama haweenka muslimaadka uu la dhaqmayay marka ay geeriyoodaan ay dhintaan inuu nabigu janaasadooda ka qayb galayay xadiis abi hurayra wuxuu tilmaamaya waxa jirtay buu yiri gabadh madow oo waxa weeyaan masaajidka nabiga sallallahu alayhi wasallam fiiqi jirtay oo udgun jirtay oo hagaajin jirtay dabeetana maalinkii dambe geeriyood goor habeena ayaa waxa weeyaan la aasay saxaabadii rasuulka kumay soo wargelin nabiga sallallahu alayhi wasallam baa mar dambe ka war helay oo ogaaday markaas waxa weeyaan wuxuu yiri heblaaya meeday markaas la yiri way dhimatay markaas wuxuu yiri maxay iigu soo wargelin weydeen janaasadeeda si aan uga qayb galo dabeetana saxaabigu wuxuu leeyahay waxa la moodaa inay arrinkeeda fududaysteen oo waxa weeyaan ay iska sahladeen oo ay yiraaheen waxa weeyaan maxaa rasuulka alle ka toosinaysa dabeetana nabigu wuxuu yiri tusiya qabrigeeda dabeetana qabrigeedii baa la tusay oo la geeyay dabeetana nabigu sallallahu alayhi wasallam uu ku tukaday waxa kamid ah qaababkii nabigu muslimaadka uu la dhaqmeeyay sida xadiiska Sa'd ibn Abi Waqqas uu tilmaamayo maalmaha kamida nabiga waxa la joogay dumar Quraysheed dumarkaasi nabigay wax weydiinayeen su'aalahay badinayeen codkooduna kor buu u taagnaa oo codka nabiga kor buu uga qaadnaa dabeetana Umar ibn al-Khattab saxaabiga la yiraahdo baa albaabkii soo garaacay oo soo idan weydiistay markay codkii Umar maqleen ayay dumarkii xijaabka ku yaaceen oo xijaabka boobeen oo waxa weeyaan ay codkoodii hoos u dhigeen oo is aruuriyeen dabeetana Umar markuu nabiga u soo galay wuxuu u soo galay nabiga oo qoslaya dabeetana wuxuu yiri rasuulkii Allah maxaad ku qoslaysaa markaas nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri dumarkani agtayday joogeen codkooduna kor buu u taagnaa markii ay ku maqleen bay xijaabka boobeen oo is aruuriyeen dabeetana Umar wuxuu yiri rasuulkii Allah adiga mudan in laga haybadaysto dumarkii buu xaqooda aaday Umar markaas wuxuu ku yiri kuwiinan nafahooda cadawga oo how miyaad iga haybadaysanaysaan oo rasuulka Allahna ka haybadaysan meeysan miya markaas dumarkii baa waxay yiraahdeen Umar oo adiga rasuulka Allah ka qalafsan oo ka adag markaas nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri Umar hadii dariiqaad soo marto oo wada aad soo marto shaydaanku dabeetana uu kula kulmo shaydaanka ayaa wada kala qaado oo wada kala mara iska daa dumarkan marka xadiidku wuxuu ku tusinayaa inuu nabigu kula dhaqmeeyo dumarkaas muslimaadka ah turid iyo naxariis iyo rifq waxa kamid ah qaababkii nabigu sallallahu alayhi wasallam dumarka muslimaadka uu la dhaqmeeyay kuwooda waxa weeyaan carmalka ah ee danta kale iyo kuwa kaleba inuu waxa weeyaan raacayay oo dantooda u soo gudayay waxaana ku tusinaya xadiis Abdullah ibn Abi Awfa wuxuu leeyahay nabigu kama san taagaynin inuu la socdo oo uu raaco dumarka carmalka ah iyo qofka danta kale iyo masaakiinta
ilaa waxa weeyaan uu dantooda u soo gudo oo u soo dhameeyo sidoo kale xadiisu Anas wuxuu tilmaamayaa maalmaha kamida nabiga gabadh baa u timi waxay ku tiri rasuulkii Allah li ilayka haaja damba kaaleeya markaas nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri heblaayoy adigu eeg oo dooro wadooyinka magaalada tii aad doonto waxa weeyaan waan ku raacayaa ilaa waxa weeyaan aan xaajadaada iyo dantaada ku soo gudayo bal nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay as-saa'i 'ala al-armalati wal-miskiin qofka gabadha waxa weeyaan armalka iyo miskiinka dantooda u qumay u istaagay u ordaya wuxuu ka dhigan yahay kal mujaahidi fi sabiilillah mid sidii dar alle u jihaadaya iyo qof maalin oo dhan sooman habeen oo dhan salaatu leeyahay taagan waxa kamida qaababkii nabigu dumarka muslimaadka ula dhaqmeeyay iyaga iyo ragooda waxa dhex yaala ayuu meesha ka saarayay nabigu sallallahu alayhi wasallam waxana ku tusinaya xadiisu Aisha waxay leedahay nabiga waxa uu timi gabadh magaceeda waxa la oran jiray aan filayaa Khawla binti Hakim waxa qabi jiray nin la oran jiray Uthman ibn Mas'uud oo saxaabada rasuulka kamid ahaa gabadhii nabiga markay u timi nabigu gabadhii wuxuu ka arkay basaas iyo waxa weeyaan inaanay waxa weeyaan nafteeda aad u daryeelin dabeetana Aisha la hadlay markay tagtay gabadhii wuxuu ku yiri Aisha waa maxay basaasta ka muuqata gabadhani markaas waxay tiri rasuulkii Allah gabadhan waxa qabanin waxa weeyaan maalin oo dhan sooman habeen oo dhan salaad u taagan gabadhan noocaas ninka noocaas uu qabo waxay ka dhigan tahay gabadhan nin lahayn sida darteed bay waxay u dayacday nafteedii oo ay u hagaajin weydo u diyaarin weydo nabigu sallallahu alayhi wasallam cid buu diray oo wuxuu yiri Uthman ibn Mas'uud hal igu yeero waa loo yeero nabigu u yimi dabeetana nabigu su'aal buu weydiiyay wuxuu ku yiri sida ma waxaad u sameynaysaa sunnadayda oo aad nacayday oo aad necab tahay markaas saxaabiga intuu naxaybu wuxuu yiri rasuulkii Allah ma ee sunnadaada ayaan dalbayayba oo aan doonayay dabeetana nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri anigu waan soomaa waanan afuraa habeenkiina waan istaagaa waanan seexdaa dumarkana waan guursadaa waxa weeyaan nabigu sallallahu alayhi wasallam dabeetana wuxuu ku yiri Uthman oo dhageyso naftaadu xaq bay kugu leedahay oo martida ku timaada xaq bay kugu leedahay oo ehelkaaga iyo ooridaadu xaq buu kugu leedahay mid walba xaqiisa si soon oo afur tuko oo seexo dumarkuna xaq ay waxa weeyaan kugu leeyihiin sidii nabigu sallallahu alayhi wasallam uu tilmaamay